sheekada aan maanta idin hayo koorin tanan idin bilaabin halkan waxaan rabaa inaan kala hadlo gabdhaha yaryar ee teenagerka ee hadda soo kacayo ee shukaansi baradka macal gabdhaha waaweyn qaarkood baa bahayimiin oo waxba kala ogeynba age is just a number so waxbaan idin sheegaa dhegaysta listen haddaba ninku hadduu ku dhaho waan ku guursan doonaa macnaheedu maaha waan ku guursaday okay waan ku guursan doonaa buu ku yidhi maxaad markaas ku wada siinaysaa ma garantibaad ku haysataa inuu ku guursan doono ma ogtahay inuu ballanka kuu qaaday oofin doono even xataa hadduu oofiyo miyuu ku qabaa waxan waa xaaraan aad samaynaysid ceeb xaraam diin ma barateen horta ceeb weeye zinadu waa xaaraan hadda maad baranaysaan zinadu waa xaaraan wuxuu ku dhihi doonaa soo maha dee waaniga kuuri waan ku guursanayaa xaafadiina la hadli doone la hadal walaal markaad la hadashideed i guursatid mawduuca ka hadal okay maalinkaas khudbada la sug ama hadda laakiinse I'm not seeing the ring, I'm not touching, I'm not feeling. Shut your mother kude inta kuma dhigi kartid sidii baa wallahi imka aadi noqotay anu gabadha kaliya kama hadlaya I'm not judging dadka dhan maan la hadlaya gabdhaha dhan maan la hadlaya macalin nafteeda la hadlaya macsidii wax aadiyay noqotayba ninku haduu ku dhaawaan ku jecelahay waan ku guursan doonaa bas dee way guursan doonaa weesh aniga berigeen shukaansi baradka ahaa waxaan ku koray ku aqliyeysteen ku soo koray yani cimli dhagood ma la dhahaa cilmi dhagood waxaan ku maqli jiray ninku hadduu ku jecel yahay kuma taabanayo anigu markaana waxa aaminsan waxa si ugu qufulan tahay baan shukaansiga aaday aniga shukaansigii ugu horeeyay waxaan aadaan oo qaanuunka ku socdo ah ninku hadduu ku jecel yahay faradha dheer kulama soo aadayo kuma taabanayo kaasaanan ilaa hadda ku socdaa this is my role way idinka maxay idinka qaldan idinkuna aanu taataabashaaban ka hadlayaa marka waana run qofka duu jecel yahay de macsi kulama raadsanayo ilaahay kuma dirayo illa nihaayaddeedu waa cadaabuna aduna ilaahay noo dambi dhaafin marka qof aanu jecelahay weesh ilaahay maxaan ugu dirayaa ficlan waana sidaas weeye qofka duu jecel yahay kuma taataabanayo ilaahay kuma dirayo cadaabna kuma rajaynayo waka facts muhiim sheekadayda noo bilaabo gabadhan waxay tiri 14 jir markaan ahaa waxaan ahaabay tiri dad jecel dadka saaxiibadaha jecel mar walba inaan saaxiib yeeshaan jeclaan jiray kelinimada adigu necbay xaafadooda problemyo badan baa ka haystay yani banaankay farxad ka raadin jirtay marka dad bay raadin jirtay ay la saaxiibto maadaama gurigii farxadii uu helba ka weyday banaankay ka raadin jirtay waa taasina waxa weeyaan problemka ugu weyneen anagu haddaan nahay Soomaali aan ku noolnahay weeye guriga farxad kuma haysano banaankan ka raadinaa farxad iyo kalsooni iyo attention banaankan ka raadinaa because gurigii kuma haysano I wish taas inaan maalin uun ka bixi doono generationka dambe inay ka bixi doonaan umuman aad waxay tiri gabadh marka saas baan ahaan jiray bay tiri markaan yar hadda gabadh waa gabadh weyn marka gabadh bay social media iska barteen gabadh marka hada ahaan way iga weynayd bay tiri iskuma naan dhaweyn ba ani laakiin 14 jir baan ahaa laakiin physic ahaan uma eekaan bay tiri 14 jir 20 jir aan eeka umuman aad gabadhii bay isbarteen way isku soo dhawaadeen way is arki jireen isku xaafaday marka ahaan gabadh isku xaafada ma ay isku magaalay deganaayeen gabadhii markaa gabdho kale iyo wiilal kale saaxiib la ahayd asxaabteedii bay bartay way isbarteen way isku iimaan jireen gabadhii waxay bartay wiilkii markay bartay gabadhani meel awal nadara way ka heshay isaguna uu ka helay waxaan ku wari xiriir bay bilaabeen day waxaan ku wari u sheekeyn jirtay iyaduna khaasatan mar walba waxay uga sheekeyn jirtay problemkeeda xaafadeeda waa sidaas hooyadii baa saa i tiri walaalkay baa saa i yiri walaashay baa saa i tiri kan buu i yiri kaasuu i yiri halkaas ka baxday waa la i dilay problemkeeda oo dhan haddii qof ay ku nafis ma haysato marka qofkan bay ku nafisaysaa soo ah qalad weyn inaad problem familkaaga uga sheekaysid ninkaad shukansatid iska daayay kaas saaxiibada baan uga sheekeyn kareen problem family is problem family baaba la yiri maxaa banaanka geynaya waxay tiri wiilku uu dhageysan jiray niyadu ii dhisi jiray allah anu waxaan waniga siribay tiri hadda ma wad heshayba faris axlaamkaagi ninku dhageysanay isagoon ku joojgaraynin kula talinayo ku waaninayo advice ku siinayo farxadeeda waxay ku leedahay hawaday maraysay adoo sidii aad waxay tiri ciid baa timi ciidiina marka waxay gurigay tiri gurigeyga kaale gurigeygan ku ciideynaa xaafadiisa gurigiisan ku ciideynaa noocan ku walaal weligii guri nin man tagine gurigaaga iman maye banaanadaan isku aragno waxay guribay tiri banaanada dad baan arkay adigana waa lagu arkaana waa la arkay gurigeyga kaale adoo igu qancay tiri calaayid xal gurigiisa inaan tago intaan gurigiisa u sii socdayna waxay tiri waan cabsanay wadnaan safarta ugu ay waa markii ugu horeysay nin guri ugu tagayo bajaaj baa raacay ninkii bajaaj la xataa iga shakeeyay tiri oo igu are you okay
maxaa la cabsanaysaa iyo markaan telefoonka ku hadlay xataa waxay tiri lambarkiisa waan xifdisanaa telefoonkeeda intii hooyadeed ka qaaday ay ku tiri jimco waxaan tegayaa salaad ciid ayay hooyadeed telefoonkeedii ka reebtay gabadh wade waa gabadh yar waxay tiri ninka markaan wacayo ninkii bajaajlaha baan telefoonka ka qaadanaya on kulahaa telefoonkaaga ay dhiib qofkaan u tegay baan wacaya adiga ninkii bajaajlaha xataa wiiga shaki wixii guuri ma fiican tahay meeshaad u socotid kuma qanacsanid miyaa maxaa khaldan halkay u socotaa su-aalo igu weydiinaya bay tiri ninkii gurigiisii baan aaday bay tiri ninkii uu ii soo baxay uu ii geliyey xaafadu markaa isagoo qolka deganaa bay tiri qolkiisii buu ii geliyey cabaar markaan saa u fadhiyey waxaan arkay bay tiri inuu jawgu degan yahay waan isfurfuray bay tiri uu ii sheekeynay inuu soo dhawaanaynin meel buu iska fadhiyey waan ugu sheekaysanay cabitaan uu keenay cuntooyin xalwo waan iska sheekaysanay bay tiri markaasaan dareemay bay tiri inuu jawgu degan yahay caadi baan u sheekaysanay saacada kasoo wareegtay waxaan ku wari tiri xaafadeedii baan ku laabanaya maca salaama uu soo saaray bay tiri bajaaj buu isaaray waan ismaca salaameyn caadi baan usoo hoyday bay tiri anigoo dee kalsoonidaydu hawada sabaynayso waa wareeg waa nin wanaagsan hal mar xataa gacanimuu soo laacin how come nin saa u qurux badan oo wanaagsan oo ijecel oo haddana la isku aamini karo markiiba kalsoonidaydu dhisantay bay tiri laakiinse waa markii ugu horreysay kalsooni buu ka samaysanaya doqon miya isagu kulankii ugu horreysay markuu waxay tiri inaan dhabdhab ninkiiba u jeclaadaba ninkii haddii kuwa un baaban jeclaadayba xaafadoodana markaasay hore u sheegtayba problemyo badan baa ka haystay ninkana way u sheegi jirtay maalin maalmaha ka mid xaafadooda islaayeen gabar iyada saaxiibayiin bay xaafadooda u dhaxday markaasaa marka iyadoo gabadha saaxiibadeeda xaafadooda iyadoo joogta buu ninkii lasoo hadlay ku yidhi halkeed joogtaayo saaxiibadii baan xaafadooda joogaa haweenaday baan isu soo laynay marka saas ninkiina wuxuu ku yidhi gabaraad saaxiibatihiin ood isku dugsitihiin xaafadooda maxaa ku seexinaya buu ku yidhi ceeb weeye waxaasi beritole gabdhaha u sheegay yacni ma qurux badne kaale aniga gurigayga ila seexo wallaahi waan yeelay bay tiri waan iska raacay gurigiisi buu geeyey bay tiri gurigiisi markuu geeyey shalmad buu dhibay bay igu tiri iska nafiso iska yacni jawi qaado halkan iska joog saaxiibada gurigooda maxaad ka doonaysaa hadhowtii dhoqdhoqdhoqdi adigu balaayo ii galay bay tiri mawduuc baar markaan joognaa daba ninka wuxuu bilaabay bay tiri inuu horteeda iskaga bedelo dharkii anoo yaaban oo isla ninka maxaa ka khaldan horteedu iskaga bedelay xilligii baan bilaabay bay tiri haddaba inuu stress i galo oon aan security dareemo ninka what's like ما حشوني ميا روح بلا بتري إنه يسود الدوادو قب صدانا مثلا كورا ولا محد قب صني سوحي يقول هذا ده عادي سويس ما تشعل إنه كور سنة حافظين الدباتوين بدن بقى هذا هايستا شلي تمشي مركا جاديد مدري قان جاديد وانكو كور سنة عم بعض وير بنكو كور سنة يا ما بفي أنا بكبر سا قرح بدن يمر كنت تبني وحكوا كلها قرح هذا بقى يعني عادي سوت شيء ده تو ضعيف هذا وسقطان لايت حال قبل ما آمنته وبنتي سي وركي ما آمنته وحي كلا دحدحي بك كلا دحدحي بين مدي أود بس أنا أبري شنطي صباح ما مركي أهيد بكونون أرد صاحبة قبو صاحبة ديدي ولا صديقي يقولها صاحبة الله سيحاني يدو بيكو محا خلدا أرد بكون ولا الجري يجبح أو عد جري يجبح بكون تنبنا أنا كم جاي عصور شيكن what محا خلدا ولا بركة دنتي الله يطلب ما يستمع يدي بتربح والبسوق ولا أنتوا واجو سفي عن أبري يوم مي بكون ولا أرد حافديني قبو ماشي هضرت آد بس تيبان هابتر لوغا عسا إيجا جبان أنا قد تعبان بانا إذا قبل باهيد موي وحلقو سسمي راج بيقو عابتري ونسكي تري حافدو دي بيقبط رومي يقول عابتري إلا إيا هادا وانكسوا كبسامي لايهاي نين أوردن شاكي بان كاقاضي أنا جي كالسولي دي نفتي بقى بابا أضي وحان آمني بيتري إنا وحو نوردي مطايا هاي قبل نمضي دي بان خساري نين أوردن بوان كعب سنجري بيتري نين هادو وانكو تعالي يقول هذا بقيني بنتي كتاهي وهادو تولي سوان يقول عياري دونان بقى مودا بيتري markii ugu dambeysay waxay tiri nin baan bartay ninkii niyadan ku dhadhisanayay waan iskala sheekeysanayay isaga aad ii jeclaaday bay tiri markii guuri aan ku guursado xaafadiina yani lambarkooga isii la waan ka cabsan jiray bitiri waan ka carcarri jiray bilowgii waxaan ku dhigi jiray maya walaal hadda aanu diyaar ma yihi waxaan ka baqayay bay tiri inuu ogaado inaanan gabadh ahayn haddaan isguursano hadhowtii ma garanayo walaal hal habeen ma lagu fikrad jaba I don't know isoo sheega كل أنا قلت ده ولا تلي لو كان كلتي لحن كوري هلا هبين حاول ما بكرة شباب قبر بعد هاي بنكوري يسوع شيء بينكنا هالويل كانوا شيء بيترين أنا قبل هاي هذا كور وحسي يقول دعان يستقبلوا يقول بيتري ما قدموا وإلهي وعادي ما أنت الصدم ولا نسينا كأجت تغير أنا كنت على ابني وكوري قبل نمي حد كشيء كان يستحيي جن كلنا صح تري أنا جي كلسوني ده نفسه يدور ما طي ولي وان كعب صنع يا بيتري نين ما كان مقلبة صصبا يكفرن إنك ما كحي كل هذا إلا هذا صاصو إذا بس عذا قبل إنه يدو حتى لا يدين كمرة بتهدى وقبل وين وحربتهم كليات إنها شيء كذا كل عبرة قاعدتان باي waxaad sheegtaa laba wiil magacyadood oo ka bilowdo xarafka ya ama y xarafka ya ama y
haddii aad tiri yaxye iyo yaasiin waa iga badbaaday sababtoo anigu waxaan doortay yuusuf iyo yaasir. haddaba iska fiiri aniga adiga yaan isku jawaab naqanin geemka ruulkiisa waa taqaanaa ciyaarta noo wata. caadiyan waxaa jiro dad iyaga iyo nasiibkooda dagaal ba-an ka dhexeeyo. haddaba maanta bal fiiri nasiibkaaga iyo adiga inaa heshiiseen iyo weli inaa isdagaashan tihiin. si walbaba waxaad sheegtaa 2 magac gabdheed oo ka bilowdo xarafka a ama e. amaal iyo aamina haddii aad tiri waa iga badbaaday sababtoo anigu waxaan doortay amran iyo ayaan. amran iyo ayaan baskiba hadduu buuxsami rabaa. si walbaba waxaad sheegtaa 2 dal oo magacyadooda ka bilowdaan xarafka na ama n. iska ilaali wadamada qaar facshir waaye. haddii aad dooratay New Zealand iyo Nigeria waa iga badbaaday. laakiin dadka doortay Norway iyo Netherland baska raaca. bye bye. nasiib team maasha Allah weli waa isla soconaa. si walbaba waxaad sheegtaa ama qabsataa 1 bil oo bilaha miilaadiga ka tirsan taasoo magaceedu ka bilaabmo xarafka ja ama j. bishaas qabsan anaa ku fikiroy. okay haddii aad qabsatay bisha January waa iga badbaaday. laakiin haddii aad qabsatay bisha June bye bye baska raac sababtoo adiga isku jawaabaan naqanay. haddii aad ka mid tahay dadka mar hore aan geemka ka saaray ee baska koray, baska mar labaad waa ka soo degi kartaa oo geemka waa ku soo noqon kartaa, laakiin 2 jeer shaashada noo garaac. tiim indha adeeg nala sii jooga xiisaa geemkaa tihiin. okay markaan waan ku leynaynaa waxaa niyadda ku qabsataa 1 magac madaxweyne oo madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray. xasan sheekha isku dhihin waa lagu fahmaa. okay haddii aad tiri Shariif Sheekh Axmed waa iga badbaaday. laakiin haddii aad tiri Farmaajo bye bye Farmaajo team baska kora. dad badan geemka waa ka hareen laakiin tiim indha adeeg iyaga maba haraan maquustayaal waaye. si walbaba waxaad qabsataa 1 maalin oo maalmaha isbuuca ka mid ah. maalinkaasna haysto iyaga fog. okay haddii aad qabsatay axad aniga waa iga badbaaday. laakiin haddii aad qabsatay isniin bye bye baska raac. okay waxaad qabsataa 2 magaalo magacyadood oo ka bilowdo xarafka ma ama m. iska ilaali anigu waxaan ku iri magaalo waddanku ma dhihin. okay haddii aad qabsatay magaalooyinka kale ah muqdisho iyo manchester waa iga badbaaday sababtoo anigu waxaan doortay madrid iyo milan. bye bye dadka madrid iyo milano doortay. ciao. waxaa ciil iga hayaa dadka siday ciyaarta u bilaabatay aanan hal mar geemka ka degin oon baska korin. dadkaas iyo nasiibkooda inaan isku diraan rabaa markaan. haddaba waxaa samaysaa 1 lambar qabso oo u dhexeeyo 1 ilaa 6. lambar 5 ha qabsanin ciyaarta ka horeysa la qabsaday. waxaad qabsataa 1 lambar oo u dhexeeyo 1 ilaa 6 marka laga reebo lambar 5. okay haddii aad qabsatay lambar 2 waa iga badbaaday. laakiin haddii aad qabsatay lambar 3 bye adinka iyo nasiibka markaan waa isku kiindiraa. ciao. okay markaana waa hubaa inaan dad badan baska saari doono. si walba waxaa qabsataa 1 kalar oo kalarada adduunka ka mid ah marka laga reebo kalarada kale ah cadaanka, madowga, casaanka iyo buluugga sababtoo ah kuwaas hore loo qabsaday. ha qabsan kalarada kale ah cadaanka, madowga, casaanka iyo buluugga. haddii aad qabsatay kalarka hurdiga ama jaallaha waa iga badbaaday sababtoo anigu waxaan qabsaday kalarka akhdarka ama cagaarka. bye. geemka saan u kulul qofka ilaa hadda aanan geemka ka saarin oo 1 mar baska korin qofkaas waa nasiibkii qof ah. laakiin markaan waa kuubaa waa ku saaraa is adkay. haddaba 5 kaar ee turubka ah 2 ka mid ah qabso. 5 kaar 2 ka mid ah qabso. 2da aan anigu ku fikirahay haddii aad qabsatid ciyaarta waa nooga bixi doontaa haddaba ogow. okay waayahay haddii aan sheego 2da kaar aad qabsatay ciyaarta waa ka bixi doontaa markaan kuugu celinaa. haddii aad qabsatay raani ama gabadha ciao ciyaarta waa ka baxday. sidoo kale haddii aad qabsatay raja ama qulaamka ama wiilka ciao adna ciyaarta waa ka baxday. waa isku dhammaatay. dadka intiisa badan geemka waa ka dejiyey. haddii aad tahay qof nasiib badan ilaa hadda waa ila soo gaartay. laakiin haddaad tahay tiim indha adeeg mar kasta waa ila socotaa adiga. bye bye waa inoo geem kale.